qaybtan taxanaha sheekooyinka waxaan ku soo bandhigaynaa sheekada guusha ee aasaasaha shirkadda Instagram Kevin Systrom. Kevin wuxuu dhashay 3 Diseembar 1983. hooyadiis waxay ahayd madaxa suuqgeynta shirkadda Zipcar halka aabihiisna uu ahaa ku-xigeenka madaxweynaha ee shirkadda TJX. Kevin wuxuu bartay computer programming-ka xilligiisii dugsiga dhexe halkaas oo uu ku sameyn jiray programmo si uu baraanka ugu sameeyo saaxiibadiis isagoo tusinayay inuu isku dayiyo inuu jabsado xisaabaadka fariimaha ee ardayda. shaqadiisii ugu horeysayna waxay ahayd mid ka fog teknoolojiyadda. inta lagu guda jiray maalmihii uu iskuulka dhiganayay wuxuu ku mashquulsanaa inuu noqdo DJ, wuxuuna codsiyo u dirsan jiray shirkadaha sameeya muusiga si ay shaqo u siiyaan. halkaas oo ugu dambeyntii ka helay shaqo mid ka mid ah shirkadihii ku yaalay magaaladiisa, wuxuuna ka shaqayn jiray dhowr saacadood usbuucii. markii uu dhammaystay waxbarashadiisii hoose wuxuu ku biiray jaamacadda Stanford isagoo bilaabay computer science, markii dambena wuxuu u beddeshay kuliyadda management science and engineering. wuxuu ka mid noqday 12 arday oo loo xushay inay ka qayb qaataan barnaamijka Mayfield Fellows Program ee jaamacadda Stanford, waana meeshii ugu horeysay uu kaga soo biiray barashada aasaasidda mowduuc cusub, waxayna u sahashay inuu 4 bilood ka mid ahaado shirkadda Audio Inc. 2004 Kevin wuxuu helay fursad shaqo taasoo ay siisay shirkadda Facebook, laakiinse wuu diiday dalabkaas maxaa yeelay wuxuu rabay inuu dhammeeyo shahaadada heerka koowaad ee jaamacadda. si kastaba ha ahaatee, markii uu dhammaystay waxbarashadiisii 2006 Kevin wuxuu ku biiray shirkadda Google, wuxuuna u shaqaynayay muddo 3 sano ah isagoo ka ahaa maamulaha suuqgeynta wax soo saarka Gmail, Google Calendar, Google Docs. 2 sano kadibna wuxuu ku biiray qaybta development corporate-ka shirkadda. 2009 Kevin wuxuu ugu dambeyntii go'aansaday inuu qaato khatar uuna ku biiro bilowga loo yaqaano nextstop.com oo uu ka noqday maareeyaha wax soo saarka. Kevin intii uu ku sugnaa nextstop.com waqtigiisa firaaqada ah wuxuu ka shaqaynayay fikrad isaga gaar u ahayd taasoo ah inuu aasaaso bar bulsho oo loogu talagalay in lagu wadaago sawirrada iyo muuqaalada, taasoo uu ugu magac daray Bar BN. markii uu dhameeyay ka shaqaynta Bar BN wuxuu u soo bandhigay saaxiibadiis 2010. kadib Kevin wuxuu go'aansaday inuu ka tago shirkaddii uu ka shaqaynayay ee nextstop.com, taasoo u muuqatay fikrad geesinimo leh maadaama uu u arkay Bar BN inay noqon karto shirkad weyn oo isagu leeyahay. nasiib wanaag, markii uu Kevin qaatay go'aankaas 2 asbuuc kadib wuxuu helay lacag maalgelin ah oo gaaraysa $500,000. kadibna wuxuu ku fikiray inuu samaysto saaxiib dhinaca hawlaha shirkadiisa la kala wada, waxaana shaqada la sii waday Mike Krager oo ahaa mid ka mid ahaa saaxiibadiisii jaamacadda. si wada jir ahna waxay bilaabeen inay adeegga Bar BN ay sii horumariyaan kana dhigaan adeeg ballaaran sida Facebook, waxayna ku dareen adeegyo badan. Bar BN waxay waagaas aad isugu dhawaayeen adeegga Foursquare oo ay iskaga ekaayeen dhinaca adeegyada, laakiin waxay ku kala duwanaayeen wadaagidda sawirada oo Bar BN ay lahayd. intii lagu guda jiray waqtigaas, maalin maalmaha ka mid ah Kevin wuxuu dalxiis u tegay dhinaca xeebta isaga iyo xaaskiisii Nicole, waxayna markaas u sheegtay inaysan mar dambe adeegsan doonin adeegiisa maadaama aysan qancin sawirada ay ku wadaagto barteeda Bar BN. waxayna u soo jeedisay in uu adeega ku daro waxyaabo sawirada qurxinaya sida filteriska inta aan la soo dhigin sawirka, taasoo ahayd wax aan ku jirin baraha bulshada xilligaas. waxayna isaga iyo saaxiibkiis dib ugu noqdeen hagaajinta barnaamijkooda, waxayna waagaas u ogolaadeen oo kaliya macaamiisha adeegsada moobilka iPhone maadaama uu lahaa kaamiro tayo leh kana caawin karta isticmaalayaasha in ay wadaagaan sawiro quality leh. markii lagu daro filteriska ku jira barnaamijkooda, magacii Bar BN-na waxay u beddeleen Instagram, taasoo loo soo gaabshay Instant iyo Telegram. ugu dambeyntiina 6 Oktoobar 2010 waxay ka dhigeen barnaamijkooda mid la wada isticmaali karo. 2 saacadood gudahoodna markii ay shaaciyeen warkaas, waxaa khadkaba ka baxay boggii Instagram uu ku lahaa internetka, taasoo ay sabab u ahayd booqadayaashii website-ka oo xadkii dhaafay maadaama la filanayay inuu barnaamijku si yaryar u korayo. waxayna habeenkaas oo dhan ka shaqaynayeen sidii ay boggooda internetka ugu soo celin lahaayeen isagoo iyo saaxiibkiis. waxaana maalinkaas oo kaliya Instagram akoono cusub ka furtay dad gaarayay 25,000 oo qof. intaas wixii ka dambeeyayna dadku waxay jeclaanayeen sida uu barnaamijku u shaqeeyo iyo filteriska barnaamijka. 9 bilood gudahoodna Instagram wuxuu ku jabiyay rikoor 7 milyan oo adeegsadayaal oo ay ka mid ahaayeen dadka ugu saameynta badan sida fanaaniinta iyo jilayaasha. magaca Instagram-na wuxuu noqday magaca labaad ee ugu caansan dhinaca teknoolojiyadda. Sebtembar 2011 waxay soo bandhigeen qaybtoodii labaad ee barnaamijka Instagram, taasoo ay la socotay adeegyo cusub
oo ay ka mid ahaayeen qurxinta sawirada si heer sare ah. waxaana ku xigtay taas inay soo saareen qaybtoodii moobilada ku shaqeeya barnaamijka Android, taas oo ay maalintii ugu horeysay download garaysteen dad gaarayay 1 milyan oo isticmaale. waxayna markaas u muuqatay in isticmaalayaasha adeega Facebook ay u wareegayaan adeega cusub ee Instagram, maadaama Facebook uu ahaa waagaas adeega kaliya ee ugu caansanaa dhinaca wadaagidda sawirada. intaas kadibna waxaa Kevin soo gaaray dalab uga imaanayay dhinaca shirkadda Twitter, taasoo ahayd in shirkadda Twitter ay doonayso in ay adeega Instagram ku iibsato lacag gaaraysa $500,000. sidoo kalena markaas waxaa iska soo daba dhacay dalabaadka lagu doonayay in lagu iibsado shirkadda Instagram, balse intaba waxaa ka qiimo badnaa qiimaha ay shirkadda Facebook ku rabtay Instagram. waxaana ugu dambeyntii uu Kevin aqbalay dalabka saaxiibkiis Mark Zuckerberg, waxayna shirkadda Facebook ku iibsatay Instagram lacag gaaraysa $1 bilyan oo cash ah. waxayna shirkadda Facebook bilowday ka shaqeynta horumarinta adeega Instagram dabayaaqadii sanadkii 2014. isticmaalayaasha adeega Instagram waxay gaarayeen 300 milyan oo isticmaalayaal joogto ah bil walba. 2015 waxay gaarayeen 400 milyan oo isticmaalayaal joogto ah bil walba, halka sawirada la soo dhigay bartana ay gaarayeen 1 bilyan oo sawir. qiimaha Instagram uu gaarayay sanadkii 2017 waxay ahayd $37 bilyan. ugu dambeyntiina intaas kadib Kevin wuxuu si shakhsi ahaan u maalgashay 3 shirkadood sanadkii 2012, waxaana shirkadahaas ka mid ahaa Bottle Cafe iyo Spark. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa muuqaalkan maanta. fadlan hadduu ku cajabiyay muuqaalkan ku soo biir kanaalka Ogow, sidoo kalena ka dhiibo aragtidaada. mahadsanid.